waarida waxaan ka shaqeeyaa dabdamiska. Maalin anoo asxaabtayda aan isla shaqeyna la jooga ayaa waxaana loo soo sheegay inuu guri gubtay. Isla markii gaariga dabdamiska ayaan qaadanay, waxaana aadnay cinwaankana loo sheegay. Dabka wuxuu qabsaday dabaqa labaad ee guriga, waxaana arkay gabar ka soo qaylinaysa daaqada, ibadbaadiya, dabka wuu isoo gaari rabaa. Waxaan bilaabnay dabka daaqada ka imaanayo inaan damino, laakiin wuu sii siyaaday. Gabadha nolosheeda halis ayay gashay. Tubada ayaan tuuray, waxaana u cararay si aan u soo badbaadiyo. Waxaana gaaray dabaqa labaad, albaabka ayaan xoog ku furay. Dabka zaa'id ayuu ololayay. Gadaal ayaan ugu sigtay, laakiin waan sii taagnaan waayay. gabadha halis ayay ku jirtaa. Waan galay, qiic ayaa zaa'id ahaa, qufac ayaan bilaabay, waxna si fiican waan u arki waayey. Ku aaway adiga ayaan dhahay, kuma arko. Intee joogtaa? Ma i maqashaa? Way ii jawaabi weyday. Waxaan ka raadiyey qolalka oo dhan, weliba asoo dabka wejiga iyo gacmaha iga gubaayo. Waxaan helay qolka ay gabadha ku jirtay. Waxaan arkay ayadoo dhulka taala, dabkana lugaha ka qabsaday. Qiicow aad u badnaa awgiis ayay la suuxday. Waxaan sameeyey ayaan garan waayey, laakiin fikrad ayaa igu soo dhacday. Dharkayga ayaan siibay, dabkana ku damiyey. Anna wareer ayaan dareemay, isla markii waan soo qaaday. Guriga ayaan ka soo bixiyey. Anoo jaranjarada ka soo degay ayaa guriga qarxay. Waxaan u malaynaa dabka inuu gaaray gasaca gaaska ku jiray. Banaanka ayaan u soo bixiyey anoo gabadha wada. Anna waan suuxay. Waxaan ku soo kacay anoo isbitaalka jooga. Indhaha ayaan kala furay. Digtoorka iyo asxaabteeda ayaan arkay. Maxaa inta i keenay? Maxaa dhacay? Marka aad meesha ka soo baxday ayaad suuxday. Gabadha ma nabad qabtaa? Xaaladaada haddaan kuu sheego, waxaad ka gubatay wejiga iyo qayb ka mid ah lugaha, laakiin wax sidaa u sii weyn maahan. daawooyin ayaan kuu qorayaa oo aad ku caafimaadayso. Inaad walwasho looma baahna. Aniga xaaladayda waan fahmay. Gabadha xaaladayda ka waran. Waan ka xumahay. Gabadha si daran ayay u gubatay. Waxaana qasab ah in qaliinka talaalka maqaarka aan ku samayno, laakiin waxaan ku dadaalay inaan dabka ka damiyo. laakiin waxaad damisay marka ay gubatay. In maqaarka loo tabaruco ayaa loo baahan yahay. Hooyadeed iyo walaalkeeda ayaa jooga, laakiin jirkeeda meelo ka mid ah ma laga soo qaadi kara miya si uu jirka isku diidin? waa runtaada, laakiin gabadha meel walba ayay ka gubatay. ma barabna khatar kale inaan sii gelino. haye haddii aad qoyskeeda ka weysan qof u tabaruca, anigaa diyaar u ah inaan u tabaruco, laakiin waxaa qasab ah inaan baaritaan kuugu samayno si aan u ogaano inay lamada jir iswaafaqayaan iyo in kale. digtoorka ayaa baxay. asxaabteeda ayaa igu dhahay, geesinimadan intay kaaga timid saaxiib? waxaan u malaynaa gabadha inaad ka heshay. waan wada qosolnay. kahilitaanka aad sheegayso muxuu yahay? gabadha way gubatay. inaan caawiya ayaan rabaa. waan kula kaftamayey. waan ogahay samaynta khayrka inaad jeceshahay. digtoorka ayaa gabadha hooyadeed u tagay. aabbaheedana mar hore ayuu dhintay. wuxuuna u sheegay xaaladda gabadheeda ay ku sugan tahay iyo in loo baahan yahay baaritaankii ayada iyo walaalkeedaba. waana la baaray. saacada kadib jawaabta ayaa soo baxday. waxaana iswaafaqay dhiigga gabadha iyo hooyadeed. digtoorka ayaa hooyada u yimid, wuxuuna ku dhahay, dhiiggaaga iyo kan gabadhaada wuu iswaafaqay. haddana qaliinka waan samayn karnaa haddaad diyaar u tahay. waan ka xumahay, ma samayn karo. digtoorka asoo yaaban ayuu ku dhahay, sabab? digtoor, anaa runta kuu sheegaayo, kaligeen ma wada hadli karnaa? digtoorka iyo hooyada xafiiska ayay galeen, mana ogi wax ay ku soo wada hadleen. digtoorka marka uu soo baxay ayuu igu dhahay, xafiiska ma ii raaci kartaa? xafiiska ayaan galnay. wuxuuna igu dhahay, gabadha hooyadeed ma tabaruci karto, waayo kansar ayay qabtaa, daawooyinna way isticmaalaysaa. haddaad rabto inaad ku tabarucdo, dhiiggaaga ayaan baaraynaa si aan u ogaano inay iswaafaqayaan midka gabadha. qolka baaritaanka ayaan aaday. dhiiga ayaa layga qaaday iyo baaritaanka kale loo baahnaa. saacada ayaa ka soo wareegay. jawaabta ayaa soo baxday. digtoorka xafiiskiisa ayaan imaaday. wuxuuna igu dhahay, dhiiggaaga iyo midka gabadha wuu iswaafaqay. garabkaaga qayb ka mid ah ayaan jaraynaa si aan qaliinka gabadha ugu samayno. adigana waxaad ku bogsoonaysaa muddo 3 isbuuc ah. haye muhiimaddu waxa ay tahay wax kasta inay ku dhammaadaan sida la rabay. waxaan rajaynaa jirkeedu inuu yeelo ku beeritaanka maqaarkaaga. habeenkii marka la gaaray qaliinka ayaan galnay, waana lagu guulaystay. 48 saacadood gudahooda ayaa la rabaa jirkeedu inuu ku aqbalo beeritaanka maqaarka. aniga hadda ma bixi karaa? waraaqaha bixitaanka ayaan kuu diyaarinayaa, laakiin ha hilmaamin daawooyinka aan ku qoray inaad isticmaasho. isbitaalka ayaan ka soo baxay. guriga ayaan imaaday.
imaaday waxaana dareemay wax fiican inaan sameeyey. waxaan ka fikirayay gabadha maqaarkayga ma aqbali doonaa. maalinta ku xigtay saaxiibkayga ayaa ii imaaday si uu faashada iiga bedelo. waxaan ku dhahay ka waran gabadha. way soo naaxday, aad ayay u fiicnaatay, wayna ku weydiinaysay inaan arka ayaan rabaa oo aan u mahad celiye ayay dhahday. mala kulmaayo ilaa jirkeeda uu ku aqbalo maqaarkayga. isbuuc kadib waxaa ii dhammaaday fasaxayga. shaqada ayaan ku laabtay. waxaan si kadis ah ku arkay waxay ay ii wadaan gabadhii iyo hooyadeed. asxaabtaydana meesha ayay joogeen. maxaa waaye sidaan ayaan ku dhahay. geesiga ayaa lagu soo dhaweynayaa ayaa asxaabteyda igu dhaheen. gabadha ayaa iga soo agdhawaatay waxayna igu dhahday mudane waan kaaga mahad celinayaa. lugahayga iyo nolosheeda ayaad badbaadisay. abaalkaaga ma gudi karo. waajibkayga ayaan guta ayaan ku dhahay. gabadha aad ayay u fiicnayd una qurux badnayd waana ka helay. laakiin waan awoodi waayey inaan u sheegto. tuuladeeda caan ayaan ka noqday. markasta waxay ka sheekayn jireen sida aan gabadha u badbaadiyey. marka aan maqnaadana way i weydiin jireen. maalmo kadibna waalidiinteeda ayaan u sheegay inaan gabadha ka helay. way fikireen. kadibna gabadha ayaa lay doonay. magaceedana wuxuu ahaa Samar. hadda waa xaaskayga iyo wiilkayga Maxamed hooyadiisa. fadlan haddii aad janalka cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa like iyo share iyo subscribe inaad noo dhahdo.